الله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. مسؤولين kala duwan ee halkan joogta galabta hay'adaha amniga ee maamulka gobolka Banaadir ama waxaan leeyahay iyo bahda warbaahinta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaan kadib galabta tahay 29 bishii 8 2024 waxaan noo suura gashay inaan halkaan isugu nimaadno annagoo wada soconno una nimidnay hawl waan in muddo aan ku jirnay dabana joognay hawshaasoo ku saabsan la dagaalankii muqaadaraadka ama la dagaalankii maandooriyaha oo aan in badan daba taagnaynay goobo badan aan ugu tagnay oo calaqa lagu karinayay oo aan soo gubnay kadibna meelo badan oo lagu iibiyo daroogadaani xashiishka leh khamrada leh taabuuga leh oo wax kastoo daroogaa leh oo runtii ay ku guulaysteen hay-adaha amniga booliiska iyo nabad sugiddii iyo degmooyinkii oo wada shaqaynaayo oo wada jiro inay ugu galaan goobihii looga ganacsanayay ama gurihii lagu kaydinayaba loogu galo kadibna laga soo qabtay ilaa iyo dhowr degmo sida warta nabadda xamarweyne yaaqshiid heliwaa iyo kaaraan iyo degmooyin kale loogu gala guryahooda lagana soo qabtay. waxaan leeyahay way ku mahadsan yihiin dadaalkaasi maamulkii degmooyinka iyo hay-adaha amniga iska kaashadeen ay guryahooda intuu u galeen ay soo qabteen daroogada noocan ay gadaashayna taallo inaad arkaysiin inta ay la eg tahay taasoo la doonayay in ubadkayna lagu dilo mustaqbalkooda lagu baabi'iyo. waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin juhdiga dadaalka aad bixiseen. waxay ku tusaysaa sida ay nooga go'an tahay haddii aan nahay dawladdii, haddaan nahay maamulkii gobolka Banaadir, haddaan nahay hay-adihii amniga annagoo wada jirnaba inaan la dagaalanno daroogada, inaan la dagaalanno anshaxumada, inaan la dagaalanno fasahaadka, inaan la dagaalanno. waa arrin naga go'aankaasna aan mar hore qaadannay ilaa iyo haddana waa daba taaganna. waxaan leenahay runtii hay-adihii garsoorka oo ayaguna marsiiyey wixii ay mudnaayeen kuwii soo aruursada xashiishka ee bakhtiga ee xaaraantan soo ururiyey oo rabeen inay maarata ku baabiyaan ubadkayna ay ku baabiyaan. waxaan leenahay idinkana waa ku mahadsantihiin nadaatihiin garsoorka. sidaas si la mid ah waxaan rabnaa mar walbaba sida ay nooga go'an tahay haddii ilaa yidhaahdo cid kasta oo shacabka ah oo Soomaali ah ee xalaal ah waa inay ka go'naato ay soo sheegaan goobaha iyo guryaha lagu iibiyo ama lagu kaydiyo iyo dukaamaka ama dabakaanyada ama farmasiyada ama dukaan weyn dhehe lagu iibinayo inay soo sheegaan ayaan ka rabnaa si aan ula dagaalanno xaaraanta ay ku iibinayaan meelahaas ay ku iibinayaan kadibna lagu bahdalayo lagu baabi'inayo ubadkayna jiilkayna mustaqbalkooda soo koraayo lagu baabi'inayo. arrin loo dulqaadan kara maahan. waa arrin aan mar kastaba u taagannahay. marar badan ayaan ku gubnay halkaas. haddana maanta waxaan joognaa halkii aan ku gubi jirnay meel ka ag dhow ayaan joognaa. intaasoo jawaan, intaasoo dhallo ah, intaasoo maaragtay calaqa, intaasoo kaartoon ayaa la gubayaa. markay ahbaada saxaafaddana waxaan leenahay waa ku mahadsantihiin sidaad ula dagaalamaysiin oo aad noogu garab siinaysiin la dagaalanka daroogada iyo maandooriyaha. waa ku mahadsantihiin. marka waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaadba hawshaani waa socotaa waana socon doontaa. waxaan xasuustaa hadda ka hor habeenada ka mid ah in loogu garo nin maqaayadiis inta la tegey ayaa wuxuu sameeyey safiitadii intuu kor ka gooyey ayuu safiitadii la meerg intuu dhex leh ayuu wuxuu ku qariyey qamre ku qariyey. wuxuu ku leeyahay marka waa baar dadku ay ka cuntaynayaan uu ku leeyahay qamradana meeshaasay ugu jirtaa. marka waa runtii nasiib darro laakiin waan barannay kaydkooda iyo khiyaanadooda iyo dhagartooda waa barannay. marka waa lala dagaalamayaa sida loola dagaalamaayo kooxda khawaarijta ah si lamid ayaa loola dagaalamayaa maandooriya. marka waxaan leeyahay waa mahadsantii mar labaad mar saddexaad. haddana insha allahu shaqo wacan ayaan leenahay. hay-adihii amnigana waan uga mahad celinaynaa sida kala duwan ay mar walba noo garab taagan yihiin. haddana waxaan leenahay insha allahu shaqadaani degmooyinka iyo hay-adaha amniga sida loo bilaabay booliis militaarada, booliiska, nabad sugidda iyo maamulka gobolka gacmaha is haysto ayaa mar kasta ku jiro dagaalkaas ku jiro waana ku jiri doonaa
إلهنا نقول دوانينا عدن كرهالي قلينا كرا مجرت إله بان كرهالي قلينا جيل كينا دل يردينا إنا كيلا لأنه واجب نصارنا نقادنا واي واجب كان قادنا غيبي كمذا أينا كمثال إلى دجال كمان دورية وأما سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.